مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان bishan barakeysan ee Ramadaan oo kamid ah shanta tiir islaamka ayaa waxa bilashadeeda la sugayaa maalinta Jimcaha ama maalinta xigta ee Sabtida dadka muslimiinta ah meel walba ay caalamka ku nool yihiin ayaa waxa ay mar walba ay dhararaan bishan bilashadeeda maadaama ajir badan uu ka buuxo waxa saaka aan soo dhaxmaray goobo aad u fara badan oo Soomaali ay ka ganacsato isla markaana aan arkay iyagoo isku diyaar gareynaya bisha Ramadaan ee fooday nagu soo haysa hudheelada laga cunteeyo ayaa gabi ahaanba albaabada loo laabi doonaa gelinka hore iyagoo gelinka dambana ay u diyaar garoobi doonaan inay u sameeyaan dadka saayimiinta afurta iyo waliba cashada waa kan mid kamid ah mas'uuliyiinta hudheelada laga cunteeyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta halkan uga faa'iideysanaya walaalaha Universal oo nagu soo booqday maanta maqaayada durdur waxaan u sheegaynaa walaalaha customerka ah inay maqaayadu xiran tahay bisha Ramadaan ilaa gelinka hore lana furi doono wixii ka dambeeya 1 o'clock bacda salaatul duhur salaada duhur kadib inta wixii ka dambeeyana take away ama wixii la qaadan doono cashadana aynu sameyn doono iyo afurkii sidoo kale waxa aan soo maray goob iyana lagu iibiyo hilibka iyo waliba waxyaabaha ay ka mid yihiin timirta iyo cuntooyinka kale ee Ramadaanka la isticmaalo mid kamid ah mas'uuliyiinta oo aan weydiiyay waxyaabaha ugu badan ay maanta oo kale ay ku howlan yihiin inay iibiyaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waxyaalaha dadku hadda naga iibsan waxa kamid ah hilibka iyo shiishiidka oo ka samaysanaysan sambuuska booqashadan soo booqtay ay ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh masaajidkan weyn ee Wembley Central oo isagu ku yaala galbeedka magaalada London oo isla markaana ah masjid Soomaali aad u fara badan ay taraawiixda iyo tahajjudka ay ku dukadaan ayaan waxaan la kulmay mas'uulka ugu sareeya masjidkan Sheekh Nasiir oo iga warbixiyay ahmiyadda bisha Ramadaan u leeyahay masaajidada inay dadka soo haleelaan we start this iftari system for last 17 years and the last 15 years I cooked myself for 400 people's food all the time and there is approximately 300 to 400 people came for iftari and food and we start this as a donation sidoo kale mid kamid ah howlwadeenada oo isagu ah nin Soomaaliya lagu magacaabo Sheekh Xuseen ayaa waxa uu iga warbixiyay isna waxa masaajidkan lagu afuriyaa Ramadaan kasta 400 oo qofka dad ka badan ayaa lagu afuriyaa waxa kale oo lacagta sakada dadka Soomaalida ah laga gaarsiiyaa sanad kasta laastii 5 sano oo ugu dambeysay ma sha Allah dad agoona oo Soomaaliya ku nool tahajjudka ma sha Allah sanadkan imaamku wuxuu balan gareynayaa in 30 kaba bisha Ramadaan in salaad tahajjudka la qabto horta dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed maanta waxaan u direynaa inay soo galayso bishii Ramadaan al-Kariim waxaana fiicnaan lahayd inagoo ku soo wadankeennii hooyo inagoo maanta inoogu soo gashay magaalada London aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan leenahay shahr Ramadaan al-Kariim Ramadaan al-Kariim bishaan waa bishi kaliya oo ugu qeyr badan aan ka faa'iideysan karno meel kasta anagoo joogno wadan kasta aad joogtid waa laga rabaa inaad suuntid waxa markii dambena aan booqday qaar kamid ah xaafadaha magaalada London gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Paddington oo iyadu kamid ah xaafadaha centerka waxana aan la kulmay dad isku diyaar gareynaya bisha barakeysan ee Ramadaan runtii markii aan soo galay guriga waxaan aad ugu farxay qaabka ay u sameeyaan sambuusaha meeshaan waxa ku jira sambuuska iyo ceeriina waxaan ku sameeynay markii hore waa fooliyadeen ku sameeysanay maadaama dhulkii inta ay isku mid aheen markaan sameeysano fooliyada aan sameeysano waxaan gashanaa talaagada freezerka qofba sidoo u yaqaano wadankeena haduu nabad ahaan lahay wadankeena aan ku soomi lahayn maanta wadankeena nabad ma aha nabad Allah keeno ilaahay idinkiis Yurub joogna alxamdulillah alshukrillah ilaahay waa noo nimceeyay Ramadaan Kariim Ramadaan Kariim Ibrahim baafa su'aashaada ah Ramadaanka see u aragtaan Ramadaanka waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay waa faraa'isha ilaahayna faray kamid ah oo aan ku faraxsanahay inkastoo uu ku soo aaday xilli dheer oo xagaagiya oo bisha Agoosto ah oo saacado badan la soomayo
haddana annagoo ku khasbanan kuna faraxsannahay ummadda muslimiintaana waa ugu hambalyeynayna meel kasta ay joogto waddanka iyagiina waa ugu ducaynaynaa waxaan leenahay mid khayr qaba oo dawlad islaam ah oo wanaagsan ay ka dhalato allah nooga dhigo oo cadaalada si kastaba ha ahaatee bishan barakeysan ee ramadaan ayaa waxa ay ku soo aaday xilliga xagayga ama samarka dalalka reer galbeedka taasoo waqtigan uu noqon doono mid aad u dheer suxuurta waxay ku egtahay 3:30 daqiiqo horanta bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo afurtuna ay noqon doonto 8 iyo waliba 12 daqiiqo waxaana la soomnaan doonaa in ka badan 16 saacadood dad aad u fara badan ayaa durbaba ka tagay dalalka reer galbeedka iyagoo soonka ay ku soo qaadan doonaan goobaha barakeysan iyo waliba dalalka carabta iyo dalalka Afrika oo iyagu ka saacad yar halka aynu joogno Ibrahim Umar Baafe Universal TV London